بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. walaalayaal dadka muslimiinta oo soomaaliyeed oo caalamka ku nool meel kastoy joogaan, waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka: assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. wa bacda salaam, waxaa weeye adduunyadan mar walba waxaa yimaada waxyaaba xawaadisaha yimaada. arrimo badan oo dalkan soomaaliya horena waa uga dhici jireen, laakiin waxyaabo badan oo ziyaadaad ah ay jiraan, taasoo loo aaneynaayo in dadkii wax taxakuma aysan lahaynin oo maaragtay wixii shareecada islaamka aan maaragtay la keenayn cid kasta oo dembi gasha. haddii dadka la jaasi lahay dembigu waa yaraa lahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa tow dhahay: walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaabi lacalakum tattaquun. dadka muslimiinta ahow, qisaaska in qofkii wax dila loo dilo, oo qofkii daraf gooyo loo gooyo, oo qof walba wixii ou gala lagu jaasiyo, nolol ayaa idinkugu sugan ow dhahay ilaahay. laakiin yaa allah subxaanahu wa tacaala warkaasuu yidhi: yaa ulil albaabi ow dhah ilaahay, dadka caqliga lahow. marka dadku hadday shareecada ay ka baxaan ama ay ku dhaqankeeda ay ka tagaan, waxay noqonayaan xayawaankaoo kale ayay noqonayaan. gaaladaba markii ilaahay uu tilmaamayay in hum ilaa kal ancaami ou dhahay ilaahay, bal hum adallu sabiila. dadka ilaahay jahannam u abuuray sifaadka ay leeyihiin alla markuu sheegay, waxay la mid yihiin ou dhahay alla subxaanahu wa tacaala xayawaanka la dhaqdoo kaleentood. waa xagga caqliga iyo fahamkay kala mid yihiin, bal ayagaa kasii baadiyeysan ayuu dhahay. maxaa yeele xayawaanku ilaahay subxaanahu wa tacaala maqaam iyo xuduud alla ugu talagalay ayuu ku taagan yahay. laakiin bani aadamka waxaa loo sameeyey inuu ka duwanaado intaas, oo caqli baa la siiyey, wax badan baa la siiyey, wax badan baa ilaahay ku fadilay. maxalu shaahidka arrintan hadda aanu ka leenahay waxaa weeye, mar dhow oo maalmo ah waxaa ka dhacay magaaladan muqdisho dhacdo aada iyo aada maaragtaya u xanuun badan. dhacdadaasu waxa weeye magaalada muqdisho iyo waddankaba wax walba oo xagga maaragtay isdilka iyo waxyaabo badan iyo way dhacaan. soomaaliduna waxaa weeye dhaqankeedu hore ayuu wuxuu u ahay inay maaragtay qabiil isu dilaan, oy wax kasta ay sameeyaan, oo maaragtay xayaalado badan ay sameeyaan. laakiin xaaladan hadda maaragtay isir sooca la yidhaahdo, oo soomaaliduna weligeed ay ku soo dhaqmi jirtay, taasuna waxaa weeye ay ka mid tahay min wasfi aljaahiliya, sida nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay. waxaa weeye casabiyadu maxay tahay? markii nabiga la weydiiyey waxa uu dhahay: an tuciina qowmaka calaa dulmi ou dhahay, waa inaad ummadaada ugu kaalmayso dulmi aad ugu kaalmayso. dadku hadday dulmi ay galaan oy daalimiin ay noqdaan, waxaa loo baahan yahay inaan dulmigaas loogu kaalmayn, in laga hor tago ayaa loo baahan yahay. wax kastoo looga hor tagaba, meeshan waxa weeye waxyaabahaas munkaraadka ah, munkarku waa uu fara badan yahay. laakiin rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam qaabka looga hortegayo munkarka 3 darajo ayuu ka dhigay. xadiiskii maaragtay imaam muslim uu wariyey iyo kutubta kale, waxa uu dhaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam: man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih, fain lam yastadic fa bilisaanihi, fain lam yastadic fa biqalbihi, wadalika adcafu liimaan. qofka adinka idinka mid ah, adinka marka la leeyahay waa dadkeena muslimiinta oo iimaanka sheeganaya, markaa iimaankeena ku run sheegayo, gacantiisa ha ku bedelo
oo xoog ha uga hor tago ayuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam. taas marka waxay ku tusaysaa in bani aadamku munkar uu la imaanayo, qaar ayaga ka mida in loogaga baahan yahay munkarkaas inay ka hor tagaan oy daafacaan, haddii kaleentood ay arladu fasahaadayso. marka difaaca koobaad waxaa weeye in markaasi waxaa weeye yadda lagu suuliyo shay baadila haddii uu yahay oo xoog loola tago. haddaadan karayn ou dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam, oo qofku uu awoodi waayo inuu gacanta uga hor tago, lisaanka ha ka sheegow dhah, lisaanka oo waxaas waa baadil ha yidhaahdo, si maaragtay dimadiisa ama naftiisa uu beri yeelo. waaba awoodi waayo haddana fa in lam yastacdifa biqalbihi ou dhah rasuulku, haddou taas awoodi waayo qalbiga ha ka bedelo oo qalbiga ha ka nacow dhah. wadalika adcafu aliimaan, iimaanka darajaadkiisa midda uu liidatana taas waaye. macnaha waxaa laga wadaa riwaayad kale siday ahaaday, laysa waraa'a dalika min aliimaani misqaalu xabati khardalin ou dhah rasuulku calayhi salatu wasalaam. haddii waxaa weeye saddexdaas derajo la waayo, wax iimaanahoo ka dambeeya geedka khardalka oo sisinta kasii yar oo maaragtay dhulka baadiyaha ka baxa, iimaan intaasa qofkaasu ma lahow dhah. marka munkarkaas dhacaaya qofkii iimaan ku jiro, qofkii awood u leh, weliba culummada ahlulcilmiga ah oo muxadisiinta mar bacdigood waxay ku fasireen gacanta ha lagu suuliyo waxaa laga rabaa xukuumadda iyo markaasi maaragtay dadka ru'asada ah oo saldanada iska leh meel kastoy joogaan ayaa loo baahan yahay gacanta inay ku suuliyaan, ilaa ayagaa awood u leh arrintaas. fa bilisaanihidana waxaa weeye waa culummaday yidhaahdeen, maxaa yeeley culummadu shaygii baadilkaahi ayagaa garanaya, waa inay ummadda u sheegaan. fa biqalbihi mid ahna waa dadka caamada, waa dadka caamada isagana wax kale haddoo waayo shaygaas waa inuu qalbiga ka nacaa. intaas haddii nala ka waayo wax iimaan hoo jira ma jirto. haddii ay dhacdo in dad annaga naga mida waxyaabahaas ay ku farxaan ama ay la raayaan, ilaahay waa ka warqabyaa qofkaasu iimaanka bannaanka uu ka yaalaa. iimaanka qofkii bannaanka ka tagana fa huwa min ahli naari weye, naarta ahalkeedu ka mid yahay. soomaalidu marka ho ogaato munkarka inuu nin laga tago amar waajib ahoo farducayna inay tahay, oo maaragtay ilaahay rasuulkiisa ka yimid inay tahay. dadkan bani aadamkaa ilaahay waa uu ka warramay. ilaahay yaa ayuha nnaasu, dad yahabow ayuu dha ilaahay, innaa khalaqnaakum min dakarin wa unsaa, waxaanu idinka abuurnay mid lab iyo mid dig, waa xawo iyo aadam. bani aadamku meel kale kama imaanin, ama ha caddaado ama ha madoobaado ama dad waxa ku sheegaano ama ha iska dhaafaano. xawaye aadam ayaa lagu abtirsanayaa. wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila, ilaahay dadki waa badiyey. xawa iyo aadam daday sii dhaleen, daday sii dhaleen, caalamku waa soo tarmayay intaas. shucuub ayaan idinka yeelnow dha ilaahay iyo qabaa'il. shacabku waxaa weeye aclaa dabaqaati nasabaa la yidhahda. nasabkuna soomaalidu nasab waxay u yaqaaniin wax iyagu samaysteen. nasabku abtirsiimada weeye. qofka hebel 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 la leeyahay, qofkaasu nasab waaye. laakiin dad waxaad arkaysaa dhahaya qolada noocaasa, dad intaas abtirsiimaa iskala, kuwaasu nasab maahan dhahaya. waa dad aan carabiyadana aan kasayn, diintana waxba aanan ka kasayn, ee jahli ku nool, hadhowna ku naargelaya. marka wa qabaa'ila, qabaaishu iyaduna markaasi nasabka waxay ku xigtaa caalamka dadka joogo dhan shucuub waaye. qabaa'ishuna markaasi waxa weeye waa markaa dadka intay usii qaybsamaan, xataa axaadiisa afkhaad jilib jilib ilaa laga tago. laakiin maxaa laydinkaga abuuray? xikma ma hiya alxikma? litacaarafuu ayuu dha ilaahay, inaad is aqoonsatiin. liyacrifa bacdukum bacdan, barkiin barka kale inuu aqoonsado. ninkaanu ninka qaraabadiisa si oo uga guto xuquuqdii qaraabada. waalidka maaragtay haddii laga soo tago xawaashiyaad leedahay, qaraabada adeer baad abtiyaad leedahay, eedaad leedahay, habaryaraad leedahay, wax kastaad leedahay. tacaaruf weeye markaas. tacaarufkuna waxaa loo baahan yahay in dadka xuquuqdii ay kugu lahay aad ka gudato, oo de silaturaximkii waajibka ahay. laa litafaakharuu biculuwi nasabi, tafiisha tafaasiirta sidaas laftirkeeda ugu taala. waxba hadda aniga adalkaygaa ma aha.
ma ahanow ilaahay leeyahy subxaanahu watacaala inaa isugu faantaan nasab sarreeya, anaa kaa nasab sarreeya, anaa kaa laandheersan, anaa kaa fulaansanta dhaqan soomaaliga ah. wax aad iyo aad u liita waaye. waa dad caqli sakhiifa oo liita ka yimid weeye. arrintaasoo gaarsiisay ummaddii inay maanta dunuubta midda ugu waaweyn oo kabaa'irta inay gasho gaarsiisay. markaasuu dha ilaahay ina akramakum cinda allahi atqaakum, war yaa idinkugu fiican, yaa idinkugu sharaf badan. qofaan ilaahay sharaf u yeelina sharaf yeelo maayo. waxaa idinkugu sharaf badan qofka ilaahay agtiisa qofka idinkugu taqwo badan, qofka rabbi ka cabsada. taqwada ilaahay ayaa maaragtay lagu kala sharaf badan yahay. wax kaloo ilaahay sheega meeshaan ma jirto. ilaahay waxaad ugu dhowaato amaad ku sharaf badnaato waa ilaahay cabsidiisa iyo daacadiisa. wax kaloo aad wax ku tahay ma leh. haddaa ibliis ku qaado oo shaydaan wax kuu akriyo oo intaas dadkii alla kala calaameeyey oo dadkii aabba'deen oo hore ay maaragtay wax ku soo dheeleen, dadka maanta jooga inay diintina bartaan, ilbaxnimada iyo wixii la sheegaya xaggay ka aadeen. dadaa weli maaragtay badownimadii iyo axraabinimadii ku jira. waxaas waxaa ku adkaya shaydaanka waaye. dhacdadii ka dhacda hadda magaalada muqdisho oo ninka maskiinka ah oo beri'a ah ina lagu dilay haddana dab lagu gubay. axmed dawla ninka wiilka la yidhaahdo oo la gubay waa ka xuna horta. waxaan ka hadlaynaa maxalu shaahidkeenu kaas wey, laakiin si caamana waa u sheegaynaa. waxaas ka dambeeyaahu waa araadulu naas, akhasu naas, bani aadamka kuwa uu liito waaye. waana in laga jaasiyaa ciddii raaci ilaahay uu ka dhigay mas-uula ka saara, waa in laga jaasiya oo laga daba tagaa. kuwa caqiidadaas qabana waa in laga qabtaa, muslimiinta laga qabtaa. dadku waa inay ayaga takooraan intay dadka takoori lahaayeen. waa in ayaga la iska fogeeya, ila ayagaa takooran. qofkii ilaahay takoora kaasaa takooran. ilaahay agtiisa daadan waxba ku ahayn waxaa tahay ma jirto. marka waxa weeye nasabka la duraayane haddaad banaysata gaad waa ku gaaloobaysaa. xadiis saxiixa nabigeena calayhi salatu salaam waxa uu dhahay rasuulkeena calayhi salatu salaam sintaani humaa bihim fi nnaasi kufrun, laba dadka gaalnimo ayaa ugu sugan. adacnu fi lansaabi wanniyaaxatu cala almeyit, nasabka oo la duro iyo meyidka oo lagu qaylsho oo niyaaxadii la sameeyo jaahiliyada. marka hadda labadan arrimood wax jaahiliyadii ka yimid waaye. dadka banaystay oo caado ka dhigtay ee dhaqanka ka dhigtane waxay u eg tahay inay ku gaaloobaan oo ilaahay agtiisa iyagoo kufaar ay tagaan. intii goor ay tahay ha ka tawba keenaano. waxaan uga tacsiyeynaynaa qaraabadaas ahlu khayrka ah oo intaasoo dunuuba loo geystay. qofkaas dhintay shahiid waaye, laakiin qofkii ka dambeeyo dembigaas ama abaabulay ama raalli ka ah, xataa midka raalli ka ah yaanba dadka ogaanin. waxa uu ka baxay maaragtay xayndaabka iimaanka uu ka baxay kaas isaguna meel kastoo joogaba. marka cid raalli ka ah ma jirto. qabiil loo nisbay maayo, cid loo nisbayhaa ma jirto. waxa weeye qabiilna cid xakunta ah ma jirto. dadku waxa weeye qof walba walaa taziru waasiratun wisra ukhra o dha ilaahi. naf dimbowda naf kale dembigeeda ma saarsanayso. dadka waxa weeye xukuumadaa ka dhexaysa. wiilkaaga haddou 15 jir noqdo waxa weeye waxaa idinka dhexeeya xukuumadda ayaa ka jaasaysay ee adaa dhalay dembigow gala laguguma qabsan kara adiga. marka waxa weeye inta markaasi maamul haysa waa inay arrintaas wax ka qabtaan weeye. soomaalidana waxaan ugaga digaynaa waxyaabahaas haraadiga ah oo soo jireenta ah oo dulliga ah. soomaaliya waxa weeye waddanka gudihiisa isku gumaysataa, laakiin hadday xuduudkaas Kenya hadday dhaafto Libooya Kenya meelahaas ay tagto ayagaa dad gumaystayaala wada ah. gaaladii meel walbay tageen, meel walbaa lagu gumaystaa, meel walbaa lagu yasaa, meel walbaa lagu waxeeyaa. maxay ayagu isu yasaayaan? balaayada ayaga haysata maxay tahay? war waxa weeye waxaas laga ilbaahana laga tago. dadka waxaas wadane hala takooro shayaadiin weeye kuwaas. waxaan leenahay marka dadkii maaragtay dembigaas laga galay oo dadkoodii la dilay, jariimadaas ay ka dhacday, waxa weeye maaragtay waa u tacsiyeynaa. ilaahay agtiisana ilaahay maaragtay samarkooda allaha weyneeyo. waqafara allaahu limayitihi, meyidkoodina ilaahay dembi dhaaf allaha siiyo. hana ogaadaano inaan maaragtay qabiil iyo maaragtay imidna iyo dad meel iskala soo jeeda waxaas inaysan samaynin oo waxaas inaysan maaragtay wax beel ka socda aysan hayn. soomaaliya oo dhan waxaas dhaqan soo jireen waaye. dadaa weli ku baaqiya arrintaas. dadka marka waxa weeye
heer hebelaanna dilay heer hebelaanna yeelay laftirkeedu waxay ka mid tahay casabiyaday ka mid tahay dad baa wax laga leeyahay heer hal nimaa dembi gelaya markaas uu leeyahay heer hebelaa nin naga dile waa inaan nin kale kasoo dilnaa bal fiiri bal aaway aayadda qur-aanka war ninka la soo dilaa ma ahada ninkii wax dilay xataa maaha marka kaas laftirkiisu qabyaaladii laftirkiisu waa ku jira casabiyadu ku jira nabigeena waa tou dhahay dacuuha fa inahaa muntinatu dhahay rasuulku war iska daayo ka tagow dhahay waa neef baktiyey weeye dadka qabyaalada casabiyada noocaasa ku dhacmaayo subax iyo galab waxay cunaan dameer baktiyey ama ey iyo doofaar baktiyey cunaan haddayse isdhahayn waa cuntiine way cunaan wax ka xun bay haayaan waxaaba laga yaabay eyga iyo doofaarka iyo maaragtay dameerku inay haddii xaalatu daruuro la gaaraba ay banaanaadaan marka waxa weeye dameer baktiyey cunaan iyo wax ka liita arrintaasaan rabay inaan xoogaa dhela aan ka iraahdo insha allahu tacaalana waxaana soomaalida ka codsanaya inay maaragtay hadda aaladii waa badatay in lasii sheergareeyo ummadda lasii gaarsiiyo oo maaragtay ummaddu ay ilaahay ka cabsadaan arrintaasna beri baan ka nahay dadka islaamka oo dhan muslimiinta dhan soomaaliyeed beri ay ka yihiin aad iyo aad baana loogaga xun yahay loona cambaaraynayaa maaragtay inti samaysayna ku kooban tahay cid kaleoo maaragtay arrintaas raalli ka ama jirto sababtoo iimaanka miyaanu ka baxaynaa iyo islaamka ilahay nagama bixiye waa iimaanka islaamka ka bax haddacnu fil ansaabi waniyaaxatu calaymayn nabiga alayh salatu salaam dadku waa inta labadaas waa ku gaaloobayaan haddana waxa weeye waxaan waa dhaqamaa laga soo jira wax la soo jira weye dadkii masaakiinta intaasoo dhan ummadii xataa aan wax xiriira aan ku lahayn dhibaato weye war waxa weye waxaas waa adduunyada wax ka jira ma aha hadday ka jiraanne meelo kooban weeye marka annaga oo muslimiin sheeganayna oo 100% muslim nahay dhahaya waxaasna ku dhaqmayna dadkaasu dad islaam waxba ka yaqaan maahan dad diin lena maahan marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ayagana allaha soo hanuunsho intii ay waxaas ku jiraan allaha ka suuliyo haddii kaleentood ilaahay subxaanahu watacaala meelow dadka oo ilaahay ku kala saaro iska leeyahy waxaas waxba ku dheefi maysid naaraa ka dambaysa marka waxa weeye waxba kugu tari mayso insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in laga waantoobi doono kelimadaas naseexadaana ummaddaanu ku sadaqaysayna hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakatu